burnaanta dumarka waxa ay u kala baxaan dhowr qaabab waxaa jira qurux ah kuwa kalena ma qurxoona gabadha run ahaantii caatinima kuma qurxoona waxay ku qurxan tahay inay buuran tahay talow buurnantee waayo mida habboon gabadha marka ay ka cayilan tahay garbaha iyo cajiraha iyo dabada aad bay u qurxoon tahay ninkana way soconaysaa weliba haddii ay leedahay naase waaweyn waaba ugu sii fiican tahay qoortana ay u dhuuban tahay lugahana ay ka buuran tahay laakiin midda cayilka quruxda aan u wadanin waa midda muxoga iyo caloosha baruur ku leh qoorta ka weyn naasahana ka yaryar marka farqi ayaa u dhaxeeya labada gabadhe sidoo kale waxaa jira buurnaanta mid balaq ah iyo taagan gabadha jirka ah waa midda taagan oo jirkeedu adag yahay adkaanta waxaa laga wadaa inuusan kala daadsanayn naagaha noocaas ah ayaa lagu tirin karaa naaga qurxoon inay yihiin marka halkan waxaan ka ogaanaynaa inay u qaybsamaan naagaha buurbuuran laba nooc oo ah sida aan hore u soo sheegnay ninkana oo aad buu ugu raaxaysanayaa midda buuran siiba naaska taag marka uu naaskeeda sidaan u taabto macaan daran ayuu dareemaa ragga ayaa ah kala dooq qaar ayaa aad u jecel kuwa burbuuran kuwa ayaa jecel kuwada caatada ah inkastoo la sheegay inay dumarka caatada ah ay ka fudud yihiin kuwa buuran